Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalkan wuxuu daba socdaa muuqaalkii lixaad ee aynu 2 daqiiqo kusoo koobnay. Markaa kan waxaynu kaga hadli doonaa sida koodhadhka loo diyaarsado Privacy and Policy Codeska ee Google looga soo qaato ayaynu dhammaantood diyaarsananaa. Okay, marka koowaad waxaad timaadaa tab cusub iska soo furo ama Google-kaaga iska imo. Kadib waxaad ku qortaa Privacy and Policy ku qor. Waxaad ku qortaa Privacy and Policy Generator baad ku qoraysaa. Marka Privacy and Policy Generator aad kusoo qortid hoos baad soo soconaysaa. Kan ayaad kusoo dhufanaysaa ay ku qoran tahay free. Waxaad ku dul dhufanaysaa Privacy and Policy Generator. Kadib markuu san kuugu soo baxo xagga u sareysa waxaad ku qoraysaa magacaaga ama magaca kuugu qoran ee website-kaaga, magac kale maaha, waa magaca website-ka inoogu qoran. Magacaas xagga sare inoogu qoran ee wariye ayuu soo gelinaynaa. Okay, halkan markaan geliyo magacayga oo ah wariye ayaan gelinayaa halka ku xigta waxaad gelinaysaa website name-ka waa la mid wariye uun ku celi wariye. Markaad halka geliso halkan your website URL baad gelinaysaa. Halka aad ka soo noqonaysaa isagoo sidaas ayaad ku soo noqonaysaa qaybta kale ku furan. Marka waxaad timaadaa website-kaaga caadiga ama halkan hadduu ku joogo oo gudihii joogto waxaad kusoo dhufataa saddexda fallaadhood ee xagga bidixda isu saaran. Kadib meesha lagu save view block ku qoranta ku dhufo. Markuu ugu soo baxo website-kaagu waxaad ku dhufataa meeshaasi ay ku qoran tahay magaca website-kaaga ku dul qoran yahay. Kadib waxaad ku dhufataa fallaadhan oo waxa macnaha waa ku koobiyesmaya. Haddaad maanta eegtidna qalinkaas aad lagu soo dhuftaa kolka magaca saas u noqon doona. Hadda waan koobiyestay tan ayaa ku dhuftay. Kadib dib ugu soo noqonayaa waxaan imanayaa page-kii ii fura. Kadib waxaan oranayaa your website. Tan ayaa halkan ayaan ku dhufanayaa. Kadib san ayaan u gelinayaa. Waxaad soo gelinaysaa halka website-kaaga URL-kiisa. Aniga hadda waan soo geliyay. Kadib waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay next. Marka san ku soo baxdo do you use cookies on your website buu ku oranayaa. miyaad doonaysaa miyaad ku isticmaashaa ama miyaad ku isticmaali doontaa buu ku leeyahay website-kaaga wax cookies ama ku isticmaali doontaa. Haddii kugu jiro waa okay, yes noqon kartaa, no noqon kartaa, wax dhibaato kuma jirto. Hadda waxaan oranayaa wax cookies ama isticmaali doono baan taabanaya. Advertisement through Google RCS, yes baad oranaysaa kan waa xayeysiisay Google ku furan doono. Oo no baad oran kartaa, labada oran kartaa, wax macno kuma taagna. Halkan ayaa iyaduna wuxuu ku yiri do you show advertising from third parties except Google. Kan oo kale isna baad oranaysaa yes baad oranaysaa. Kadib waxaad ku dhufataa meesha ku qoran tahay next. Kadib markii san ku soo baxdo waxaad imanaysaa markuu ku soo saaro country-ga dooranaysaa wadankaaga dooranaysaa yani haddii soo doorano Soomaaliya soo doorano. Marka Soomaaliya ku soo dhufatid kadib wuxuu qoran waxaad gelisaa email-kaaga. Aniga halkan email-kayga gelinayaa oo la iska yarqalinaya waxoogaa. Okay, waan geliyay email-kii waan geliyay. Kadib waxaan oranayaa generate my privacy policy. Kadib sidan ayuu ugu soo bixi doonaa ama san ayuu kugu soo baxayaa. Wax yar ayaad hoos soo degaysaa. Halkan ayaad ku dhufanaysaa copy text board-kaas aad ku dhufanaysaa. oo aad yani ka koobiyeysanaysaa textiga. Kan marka ku dhufatay copy text board uu ku koobiyay textiga waa kana uu ku sheegay inuu copy ku siito. Kadib waxaad ku soo noqonaysaa website-kaaga ama xaggan ayaad imanaysaa. Marka halkan timaadid waxaad ku soo dhufanaysaa meesha ku qoran tahay pages ama meeshan yaninka ka hooseysa ee pages ku qoran tahay ku dhufo. Kadib waxaa ku soo baxay page-kii aad samaysatay. Afartan page oo kuwaan soo samaynay muuqaalkii ku horeeyay. Marka hadda code-ka ay siinay privacy and policy si toos ah ugu soo koobiyan doona si aan privacy and policy-gana active uga dhigno. Okay, ku soo dhufo privacy and policy dushiisa. Okay, halkan ayaad ku soo koobiyeynaysaa koobiga sidatay aad dhigaysaa. Halkan ayaad dhigaysaa. Okay, halkan kolka hore bedel meesha ku qoran tahay fallaadha taabo. Kadib waxaad u bedeshaa HTML u bedel. Marka HTML u bedeshid waxaan iska masax meesha ku qoran. Marka iska masaxdid waxaad samaysaa
xaji halka banaanka meesha badboosa kadibna pastiga taa ku dhufo kadib pasti marka ku dhufatid san ayuu kugu soo dhigi doonaa koodhka aad sidatay koodhkan markuu kugu soo dhigo okay waxaad oranaysaa hadda publish ayaad oranaysaa wax kale kuma darasid confirm dateedna waxaynu eegna soo eegyahay labada saddexda dhibcood ku dhufo kadib waxa ku dhufata meeshan view ku qoran tahay okay saasoo noogu ekaaday privacy and policy hadda waynu leenahay wariye wuxuu leeyahay privacy and policy saxa privacy and policy waxyaalaha uu kugula xisaabtami doono hadhow toole Google Adsense okay waxaan ku daranaa page kale isagana disclaimer ah hadda ku soo laabo halkaaga hore kadib waxaad ku soo qortaa xaga sare disclaimer marka DI soo qoray hore igu soo qabtay inta ku soo qoray xaga sare Google-ka disclaimer generator-ka ku soo dhufo ay ku qoran tahay disclaimer generator kadib sida shaashadan kale ku soo baxaysa sidii si lamida magacaaga ku soo gali waa isku mid intani magacaaga soo gali kadib saan ku sheegay soo wada gali halkan website-kaaga soo gali nagastane kadib halkan wadanka ka soo dooro kadibna waxaad ku dhufataa meeshan ay ku qoran tahay generate my disclaimer kadib waxaad ku soo dhufataa copy tan hoose ku qoran tahay copy text hadda copy bayna lagu sameeyay kadib website-kaaga dib ugu soo laabo xagiisa sare okay waxa ku dhufataa hadda meesha ku qoran tahay disclaimer okay xaji meeshaasi banaan ee hoose hadda oo ku soo paste gareeya koodhka ee sidatay hadda waan ku soo paste gareynay okay waxaan odhanaa publish okay saan u sameeyno hadaba page xiga ee terms and conditions page saan u abuurno marka hore waxa soo furataa Google ka soo furo kadib waxaad ku qortaa meeshan search Google ka ku qortaa terms and conditions generator or terms wakala ana saas ugu soo baxaya hadana adiga uu ku soo bixin xag sare ku qor terms and conditions generator ba ku soo baxaya kadib ku soo dhufay isaga marka aad ku soo dhufato waxa hoos soo yartay meeshan ku qoran tahay terms and conditions sample generator ka ku dhufo okay sidii lamida iyagana intii bad ku soo buuxinaysaa magaca iyo website-kaaga magaciisa oo yar boobsinaya si aad intii hore saddexda hore maadaama aad la haysatay si lamid ma lagu soo buuxin waxba kama duwana okay waxa ku dhufanaysaa generate my terms and conditions markaad soo dhameysay intaasi labadan kan hoose iyo ka sare ka hoose ayaa dooranaysaa ay ku qoran tahay copy text to clipboard okay dushiisa ku dhufanaysaa kadib wuxuu sheegay inuu ii copyay ama wax ku qoran text copy book oranaya kadib marka soo website kugu soo baxo terms and conditions ku soo dhufo kadib terms and conditions marka ku soo dhufatid meeshan hoose marka hore hadii meeshaasi sare ayna ku ahayn xagga sare hadii ku ahayn ayna sida ayna kugu doorneen HTML ka dhigo fadlan marka hore HTML ka sare dooro HTML view ka dhigo kadib marka HTML ka dhigatid xaggan hoose ee cadaanka ah ayaad xajinaysaa korkeeda kadibna koodhkan sitay ayaan ku soo paste gareynaya okay kadib waxaan oranayaa publish ayaan oranayaa koodhka hadda waan ku soo paste gareeyay kadib waxaan oranayaa kaliya publish okay hadda waxaan sameeynay privacy and policy disclaimer terms and conditions about us kaasina hadda ku soo daayeen muuqaalka xiga ku soo dari doonaa iyo contact us oo page ah isagana waan sameyn doonaa muuqaalku dheeraani awgiis intaan ka badan ma sii wadi karno muuqaalka marka about us ka muuqaalka xiga ayaan about us kaas aad u fududeeyay aan soo gelin doonaa iyo contact us code aan ku sii doonaa isaguna aad u fudud labada markaan soo gelino ka bacdi waxaan qaadi doonaa page-kan dhamaantood kadibna waxaan geyn doonaa
meesha website-keena xagiisan hoose ay ka muuqato waxaan geyn doonaa meesha u hooseysa ay ku qoran tahay about qayb waxa about ku qoran ka soo muujina contact us privacy policy terms and disclaimer intaas ayaynu page-keenan aynu diyaarsanay soo gelin doonaa muuqaalkeena xiga muuqaalka horena waxaan ku soo duubnay sida loo dhisayay muuqaalkan imkana waxaynu ku baranaynay sida page-kan kororka loo geliyo kanka ku xigana insha Allah page-ka waxaan ka soo muujin doonaa xagga hoose ay ku qoran tahay privacy and policy contact us kuwaas ay dhamaantood ka soo muujin doonaa insha Allah ta'ala hadii la yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.